السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo noqod wacan oo wanaagsan maqalkan iyo muuqaalkan hadda aragtaan waxaan leeyahay like and share and gambalaalka ma aragtay dhow markuu dhaho ku dhufta okay soo noqod waxaan oo wanaagsan halkan waxaan igu hayaa galabta horta qof walba wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo sheeko ama si loo yaqaano digriyaad xasuus okay waa maxay waxa aan ka hadlayo maxay tahay waxa aan ka hadlayo waxa waaye gastric cudurka la yiraahdo gastric ayaan rabaa inaan ka hadlo okay marka aniga ahaantayda waxa igu dhacay gastric ayaa igu dhacay marka dad badan oo waxaa jira aniga ila mid ah oo waxaa jira ayagana oo oo gastric leh oo qaabka ay isku daaweyn lahaa ilaahay baa wax daaweeyo aysan aqoon oo laakiin ay ku daaleen wax badan oo wax la yiraahdo oo dhakhtar ay u tageen oo wax natiijo ah oo ayna kala kulmin marka maxaan ku daaweeyey maxaan ilaahay ka sokow maxaa aniga aan ku caafimaaday oo aan ku helay natiijo aad iyo aad u qurux badan okay gastriga waan naqaanaa wuxuu leeyahay wajiyo badan buu leeyahay qofba sibuu ugu dhacaa aniga gastriga wuu ila dirsay ilaa muddo dhowr iyo 10 sano ayuu gastriga aniga hayay waana ila dirsay waxa waa waxyaalo badan ayuu igu sameeyay okay marka maxaa dareemi jiray maxaa qaatay maxaa daawo ah okay gastriga markuu ani ahaanteedu ugu dhaco dad badan waxaa jiro oo ayagana maaragtay dhahay alleelahe aniga waxaas ay ahaya kaas uu ka hadlay ay ahaya okay dadka aniga waxaan ahaa oo gastriga lama taga oo habeenkii marka la gaaro sida loo yaqaano 12 marka la dhaafo maalin kale ay tahay habeenimo oo 2 o'clock meelahaas ama 3 o'clock in the morning marka ay tahay ayaa waxa igu soo kici jiray wax la yiraahdo nabar xanuun oo laabtalkaas dhan ay gubanayso oo aan guriga wixii joog kulli aan soo kicin jiray oo dhigi jiray hey soo baxa waa la hayaa oo aan ma tagay oo halkaas laga qabanayay waxyaalo badan waxa iga qaldanaa qaabka loo cuno cuntooyinka qaabka uu qofka u qaadanayo dhakhtar baan u tagay hor dhakhtarka u tagin ayaa waxaan wacay 911 baa wacay ambulance ko qaaday talka la geeyay waxaan ku dhahaa waa la baaray wixii gastriga la igu sheegay marka gastriga marka la igu sheegay haddana waan soo noqday muddo badan buu haddana i hayay haddana sidoo kale meel walba haddaan goob shaqo aan tago haddii barnaamijyo aan leeyahay oo aan ka qayb galayo habeenkaas oo kaleeto waxaa waaye waa aad baa u xanuunsan jiray marka maxaan la igu sameeyey maxaanse sameeyey ani ahaanteyda oo aan follow gareeyey sida aan isaga daaweyn lahaa okay marka maxaan sameeyey marka kaniiniyan soo qaadan jiray oo la yiraahdo Zantac oo waxa lagu gadaa lagu iibiyaa farmashiya lagu iibiyaa oo adduunka dacaladiisa marka magaalada aan deganahay Columbus Ohio waxaan la noqday meel la yiraahdo Walgreen ama CVS ka oo farmashiya ku dhex yaalo ayaa waxaan la noqday saaxiib because Zantac waxaan ka arkaa TV-gan ka arkaa commercial lagu xayeysiinayo dad oo ciyaaraya basketball dheelayaan ama dad banan dheelayaan oo ayagana just like dhahay Zantac qaatay saana noqday laabti oo guunaysay ayaa mataqaanaa ka degto I'm like I don't even done lama go get it waa soo baxay meesha imaaday waxaan ku hey waxaan u baahanahay Zantac okay waa fiiriyay waa google gareeyay sorry guys markaan fiiriyay waxaan arkay qayb ka mid ah aniga waxa ay ahaaya in ay Zantac uu ka hadlayo so markaan qaato xanuunka igu kaco 2 o'clock in the morning uu soo kaco xanuunka ama 6 o'clock galabtii uu xanuunka igu kaco aan qaadan jiray marka wax yar ilaa 10 minutes to xanuunku waa iga tagi jiray
xanuunka marka waa igu soo kacaa waa sidii nabarka ay qabanayo laabta ay gubanaysa okay haddana isbitaalkiian naawunkia wacay waa la qaaday marka la qaado waxaa la yidhi caawa ma bixiysa la dhahay just waxa waaye hawshaada waa wax oo serious waay okay aan dhahay familka soo wax waa u sheegay waxaa la dhahay galabtii waxaan u tegay like adiga 7 habeenimo u tegay habeenkii meesha la seexiyey adiga subaxii 5 o'clock in the morning waxaa lagu qalayaa okay I'm like waa lagu qalayaa familka isku imaaday okay kabacdi okay aan dhahay so dhuunta waxa laga geliyay tuubada laga geliyay because waxay ku dhahayaan inta baashaal oo lagu sameeynin waa inaan matqan calooshaada ay aasonta oo amal oo kale aan isbitaalka markaa joogay marka sidii la igu sameeyay kabacdi markii oo laga qalay oo gastriga laga qalay hada muddo kabla 1 month haddana xanuunku waa soo laabtay dhakhtarkii la xiriiray excuse me guys how haraaday haya dhakhtarkii markaa la xiriiray waxaan ku dhahay aniga weli sidii ahay maxaan sameeyaa marka wuxuu igu yiri cuntooyinka aad qaadanayso iska bedel aan dadka waxaan ahaa oo aadka u jecel McDonald's iyo frieska iyo waxyaalaha maaragta oo saliidda leh oo too much aad u jeclaa waxaan aad u jeclaa xalwada mar waa inka sheekeyn doonaa xalwad waxa aan kala kulmay حلوة حواد أنا I don't eat حلوة sometimes like عيد أو كلته like in the family yeah in عيد ما كلته like just like دمية لا really أنا تيجي هرب عن جرميه you know okay مركب محل تمية وأوش يجا حنقولي تمية مركب حيقول هاي try إن متقنع أو حلو يجري إن إسكالفت عن توينك أو وحيالها سريد له okay aan dhahay bes waa aamusay waan soo baxay maalmaha kamid ah aniga oo shaqaan joogay shaqadii waa qaban kari waayay shaqa marka waxaan ka ahaa manager shaqa ka ahaa meel oo caafimaad marka saacadu waxay ahayd 10:30 in the morning hal mara meesha xafiiska meesha computerda fadhiyay waa ka kacay because nabarka i haayo wado I'm like I'm not gonna stay here وبحيا ده والله صوّع ورج ما هاخد بكو قرعة all وصوّعين قبل النيرس كصوّع عليه كله صوّعين yo what happened to you ما هاخد قرعة مركز تقول I'm not feeling well مركز لي يقولي oh وين ما قوق على okay you know قرعة ad okay بيبدأ عاد سان سمي دانتون كاسكو وريجاي قفك حنون كجاستريكا هرت وحن إيش جايا هبينا كمد أو يقول لي عجري إن أنا ولولو مركا أنا صيحته إن أنا ولولو إن أنا كولولو شقادة إن أنا كولولو وحول بان كولولو قد قفك مركو هول أذك مانجر كتها أو حكومة صح تمرس وحكو تعال وحلي لا برشر وين أكو تعال سو مركا وسوق عجري فدقة سو فرسنجر حن جري قريان فيرنا يا قلكو هويا فيرنا وصباح قلك كلا فيرنا ورانا فيرنا قلك كان كلا فيرنا وصف لسنا واو يعني جاسترجا أيوة حكليها دور نوعد ولولا يقبل جري ولول I'm like قرآن أخرجتها حنا سبحان الله العظيم حقلتن what the hell is going on هدي أعمال عن كهيساي أو عن شو كلها عن برنامج أكون جرو أو عن قبنا أيوه وان كتجري وكبه جري قفل الحلم حقول أحسن مع كونفيس وحكوا هاي محيط هاي مع كقلتن أنا واحد يجري ميالو سحر مع قلتن you know وياهب جري I'm like what ولا قلي تنا لو سمي داوفي أنا لو سي كان لو سي ورد وحي كو قريهن you know what I'm saying okay مركا وصوب بحي لانتون كانوا اسكو wareegayo ayaan waxaan arkay meel ay dad Arab ah ay sii galayaan xana hoy let me go in meesha amaaday waa la hadlay friend desk meel xafiis oo hore oo fadhiyo gabar fadhiday iyo wiil waxaan ku yiri have a question yes maxaa tiina ku dhanka oo dhakhtar waa lahayd marka Arabi ku hadlayeen oo ka ku Arabi aan ku hadlay assalaamu alaykum wa alaykum asalaam أخبارك الحمد لله بعد وحين قضي ودك الله سوريا مش تاكل تقري كبعد يا حدا هاي محل أخركم الدكتور يعني محو كسب سيء مختار يري ويوح ياله أو
journalka caafimaadka dhan buu ku saabsan yahay oo xibnaha oo beerka iyo waxyaalahaas dhan buu ku saabsan yahay everything. Okay, marka waxaan ku dhahay balan ma la ii samayn karaa? Markaasaa yidhi maxaa ku haya? Marka waxaan ku dhahay gastriga ay hayo waxaan markaasaa lagu yidhi okay ballanteen waxay noqotaa la yidhi ilaa iyo 2-3 week inaan mataqaana aan ku balimino kadib dhakhtarka inaan u imaado. Okay, ballantaa la ii sameeyey. kaar caafimaad ma leedahay ayaa dhahay. kaarka caafimaadka wixii aan siiyey informationka baalkaa la siiyey waa buuxiyey. waxaa la dhahay waa kusoo wacinaa marka ka dhimataa lahay 2-3 days inaad mataqaana ku xasuusino numberkan haddaa badashana nala soo sheeg ama email noo soo dir. Okay aan dhahay adiga insha allah waa isoo waceen dhakhtarkii. waxaa lagu dhahay Mr. bla 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 ballantaadi waxaa ka dhiman 2 days. Okay, waxaa la dhahay daawooyinka aa qaadato all of them soo qaado oo wax kasta aa qaadanaysa. Okay, waa soo baxay. mar walba aan biyo cabaa. biyaha waxaa waaye biyo cad waxaa waaye is caafimaad waaye. marka dhakhtarkan soo fariisto meeshaan soo galay daawooyinka aan soo dhigay. daawooyinka markaa aan tusay way la sheekaystay. wuxuu igu yidhi ii sheeg waxa adiga aad tabanayso. wixii aniga aan tabanayaan u sheegay. aniga saan baan ahaa stress baa igu dhacaya oo aan jirin walwal iyo matag iyo maaragtay halkaasaa laga qabanaya. waan dhulkaan seexanaya waxaan leeyahay I'm like oh my god maxaa inta kaaga jira halka maxaa kaaga jira heer waxaan gaaray dadka xataa nervous ku noqdo oo qof walba aan ku xanaaqo. marka wuxuu igu yidhi hadda maadaama lagu qalay qalitaan kale kuma diri kari. wuxuu yidhi waxaan ku siinayaa uu yidhi babaay. waa taqaanaa sama babaay uu soo qaaday. babaayga bacdi oo caadiya waa la googooyey. babaayga yaa la shiiday. kabacdi marka la shiiday tambar wax yar waa la siiyey koob yar oo yiriis wax yar aa lagu soo shubay. babaayga qabanka sii waa cabay. qalka dhana xoogaa waxaan ka dareemay in like inaan xoogaa inaan degay. subxaanallah I'm like wow okay. markaasuu igu yidhi sidaad ku tihiin buu yidhi waxyaalaha dabiiciga. ana marka waxyaalaha dabiiciga waxaan ka hadla almost like 5 years 6 years ka horan ka hadlayaa. marka taa ku dhahay waxyaalaha dabiiciga maxaan dhahay sometimes waa ku arkaa gurigaan dhahay oo familka isticmaala. maxaa kamid wixii aan sheegay marka timirta iyo waxyaalahaas aan sheegay you know tufaaxa iyo waxaas iyo. marka wuxuu igu yidhi babaaygaan cun. waxaa jiruu yidhi malab oo la dhahaya manuka honey ana ma aqaana ku dhahay muxuu yahay. so dhagdhag manuka la ii keenay waa lay tusay manuka honey that one manuka honey. okay, manuka honey iga sheekeeyey. wuxuu yidhi manuka honey wuxuu dhahay waa malab ka mid ah malabyaasha uu ilaahay sameeyey waaye. so wax walba uu ilaahay sameeyey wuxuu u sameeyaa darajooyin oo kala sameeyaa. so marka malabkan manuka honey waddankan New Zealand ayaa lagu sameeyey. shinnida ku taalo halkaas ayay mataqaanaa ku beertaa. dunida oo dhan meel ka mid ah ma ku samayn karto. subxaanallah yani ilaahay azza wajal maaragtay suu maaragtay isagaa yaqaana wuxuu abuuray meesha ugu talagalay. marka waxaa la yidhi malabkaa shinnida ay ku samayso waddankaasaa loogu talagalay halkaasay taallaa. so meel kale ma aadi karto. marka malabkaa la baaray faxad baa laga sameeyey. waxaa la arkay waxyaalo badan malabka inuu faa'iido inuu yahay. inay malab kasta oo dabiici ah faa'iido u leeyahay. way kala darajo fiican yihiin way kala darajo yar yihiin way kala darajo badan yihiin. marka malabkan marka faa'iidadu ii sheegay wuu ii qoray. wuxuu igu yidhi waxaa aadaa dukaamada oo organiga ah oo dabiiciga kasoo qaado ama online kasoo gado dukaanka onlinekiisa bes magaciyan qaatay. wuu ii sheegay wuxuu igu yidhi subaxii marka aad soo kacdo oo wuxuu dhahay calooshaadu ay maran tahay. ilan qofka bini'aadmiga markuu habeenka hurdo oo subaxii soo kaco waa sooman yahay. maanta dhan aad jiiftay 8 hours 10 hours 5 hours 6 hours waa hurdo right. so marka wuxuu dhahay marka aad soo kacdo waxaa samaysaa hal qaado oo manuka honey ah soo qabso. hadda waa kana waxaa yara xara manuka honey now hadda inaan cunaan rabaa. bismillahi raxiim. oo jeedin manuka honey marka malabkan wuu fadhiyaa sida waxaa waaye xalwada camal wuu fadhiyaa. wuu adag yahay wax ma kaa dhibaayo.
بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي wuxuu dhahay markaa subax soo kacdo hal qaado oo manuuka hani ah qaado caagan camal maa u saxadan biyahan oo badan hal xabo ah markaa hal qaado ka cabtid ayaad hadda waan qaatay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اوكي marka hal qaado ka qaadatid ayaa waxaa dhamaynaysaa biyahaas oo dhan ayaa dhamaynaysaa then waxa aad siinaysaa ama sugaysaa 35 minutes ayaa sugaysaa so uu jirkaaga oo mataqaanaa oo wasaqdii iyo wixii uga dhaqo habeenkina sidoo kaleeto waa baxay meeshaan tagay waan soo gatay malabka waxaa laga siiyey $40 aa laga siiyey hal waxaan in sheegayaa aniga I'm not making marketing ma u sameynay company-gan lahaya manuuka hani uma shaqeeyay company-gan aniga Herbalife ayaan ka shaqeeyaa oo macallin aan ka ahay oo coach aan ka ahay aniga manuuka hani I'm not making wax oo suuq geen iyo marketing iyo waxyaalo ma sameeyo qofkii u baahan inuu manuuka hani waxyaalo uu qabto u baahan yahay waa you can go to YouTube you can go to Google waa arki kartaa manuuka hani waxa uu yahay aniga xayisiin ma u sameynayo oo igu wallahi ugu billahi wax iga run ah waay wax run ah ninka sheegaya yani qofka bil aadmiga waa wuxuu xafiican waxa marka adiga aad qaadato oo adiga aad soo sameysay waxa ku fiican in aad dadka aad ula timaadid oo dadka aad u sheegtid waxaan qaadanayaa manuukani almost ilaa 7 years aan qaadanayo ku dhawaada yes way maqlaysan 7 years aan qaadanayo ku dhawaada ma sha Allah okay waana ku natiijo ku gaaray waxyaalo badan oo aniga iga maqnaa aan ka hel ilaahay xaqiisa laakiin manuukan way caawiyay malab walba oo dabiici uu ka caawinaya okay malabka soo gatay excuse me hargabi ma hayo bilaadana iska xoogaa maaragtay iska dareemtay so okay marka malabkan soo gatay sidii aan sameeyay habeenkina waan qaadanayay marka aan seexan rabo 30 minutes 40 minutes kahor ayaan hal qaado ka qaadanayo so marka xanuunkii iyo wixii waa iga degan excuse me biya cabaya guys okay markaan qaatay ayaa maxaa dhacay inaan kaniinkii oo zantagi aan qaadanayo inaan tuuro ormaaka meel ku tuuro waaba nacayba okay waxaan bedelay qaabka aniga aan cuntooyinka u cuno awal waxaa cuni jiray waxyaalaha saliidda ku jiro hadday noqoto burka hadday noqoto bariiska hadday noqoto baastada habeenkii waxaan samayn jiray santa dhalinyara iska nahay late time iska gaaraynaa telefoon iskaga hadlaysaa aniga aron play game ma dheelo waxaa laga yaabaa mar inaan mid heesa markaan xafidayo kaleeto oo aniga aan barnaamijyo aan leeyahay ayaan ku gaaraa marka aan shaqeynayno kale weekendiga aan qofka ah oo kaleeto heesta aan xafidayo oo rabana heesta aan xafido waxaan aan jiray inaan baasta aan ku tuurto ama guriga intaan arko familka ay kariyeen oo kale aan soo qaato aan cuno halkaas fadhiga la fadhiisto aan iska cuno ama aan waxyaalo basbaas leh aan cuno habeenkii aan ku seexdo waxaan ahaan jiray qof mataqaanaa careless iska ah oo mataqaanaa kana fikiraynin wixii u fiican iyo wixii u xun so marka aan baaray oo aan la dirsay oo xanuunkayga aan la seexday oo xanuunkayga aan la gaaray meesha uu rabo heerka uu rabo uu gaarsiiyey inaan xanuunkii aan waxaan kula sameeyay dagaal asagaa la dagaalay so marka waxaan kula dagaaltamay wax walba oo asaga iga soo galayay inaan dham aan qabto okay rabadaanaan soo galay rabadaanka familkayga iyo famil walba Soomaaliya waan wada naqaanaa maxaa ku afurtiin sambuus bur bajiyo basbaas malawax abka hilba abka ma in sheegi karo laakiin waa garanaysi right ama Soomaaliya ha joogaan ama America ha joogaan ama Europe ha joogaan ama Carabaha ha joogaan ama Afrika kale ha joogaan family Soomaali cuntooyinkan aad buu nooga qaldan yahay haddana waxaan rabaa insha Allah rabadaan baa soo galaya qaabka dadka waxaan rabaa inaan u sheego dadka aniga ila midka ah
dadka aniga ila midka oo mataqaanaa oo gastriga dhibaato ay ka haysato ayaa waxaan rabaa qaabka loo afuro iyo qaabka maaragtay cuntooyinka ay u qaadanayaan oo ayagoon daawo ay qaadan ee si ilaahay ka xag ka sokow ay mataqaanaa ku caafimaad lahayn. Okay, marka waxaan sameeyey cuntooyinka bedelay, qaabka wax u qaadanayaan bedelay, everything iska bedelay. Marka natiijadan gaaray waxa waaye Manuka Honey inuu aniga iga caawiyey wax la yiraahdo gastriga any kanini heer xataa waxaan qaadan jiray daawo oo mataqaanaa sida nuuriyada weeg sida wax cad camal kala la qasaayo oo qaraar badan dadku waxay yaqaan gastriga ay yaqaan dad badan gastriga qaba ay soo wici doonaan way ogyihiin bahal la qasaayo oo mataqaanaa qaraar weeye oo mataqaanaa cad waaye oo daawo ah oo caab ku jirta waa luxaysaa waa cabaysaa qaraarka halkaas ku qarxayaan taas oo dhan wax dhan waa joojiyey Manuka Honey waa caawiyey ilaahay ka sokow. Marka waxaan leeyahay wax walba waxaa samaysiin marka adiga aad jiran tahay, marka wax aad rabto inaad samaysid ina adiga marka waxa adiga xanuunka ku haayo waa inaad la daristaa, xanuunka ku haayo waa inaad la saaxiibtaa, xanuunka ku haayo waa inaad fiirisaa intuu ka socdaa xaguusa ii wadaa ilaahay og. Laakiin adiga meesha uu ku wado waxaan ka wadaa waxa adiga aad cunaysid, waxa calooshaada aad gelinaysid waa in aad ka fiirsataa oo aad la dagaashaa oo dagaal oo jim ina la gashi waayo oo tiraahdo hey maxaa kaa qaldan fariiso qalin soo qaado buug qoro YouTube gal meelaha oo online ka fiiri. dad badan waxaa helaysaa adiga kula mid ah oo dad waxaa jira oo gastri qaba jiro oo sometimes mar waxay sameeyaan waxay soo galaan online ka soo galaan oo ay way ka sheekeeyaan qaab waxyaalaha isku daaweeyaan waxyaalaha ay qabtaan waxyaalaha ay jecel yihiin tan kaleetana waa inaad sameeyto xalaha jimicsi inaad sameeyto waaye soo samtaqan jirkaaga mataqaana oo soo ugu dhaxyaacin oo san maarta adigana aan xanuunkan u kula dirsin. Marka aad iyo aad baa maaragtay aniga aan ugu caafimaaday. Marka waxaan leeyahay cashirkeena dambeetona waxa aan ka hadli doonaa mowduuc kale asagana. Marka waxaan isku ognahay qof walba oo gastriga haayo oo xanuunkan haayo ama daawo la'aan hayso Manuka Honey hadduu heli karo ha soo helo, haddaad heli karina malab oo dabiici ah meel walba adduunka u yaallo. Malab yar waxaa jiro oo sonkor lagu sameeyey dad la ii sheegay malab oo sonkor lagu sameeyanaa jiro dadka been u sheegayaan subxaanallah xawaaye ilaahay igu og. Okay, marka qaado cuntooyinka aad qaadanaysiina iska fiiriya cuntada adiga aad qaadanaysid la fadhiiso cuntadaada bedel habeenkii haddii uu gastri kuu kaco caano waa cabi kartaa caanaha looska oo kaleeto ama caanaha caadiga oo kaleeto rootiga qamadiga oo kaleeto maxaan ku raahdaa kaleeto waxaa kaloo kuu fiican boorashka uu kuu fiican yahay babaayga kale uu kuu fiican yahay mooska kale uu kuu fiican yahay haddii aad ku shiido caano ku shiido ama ku cabto yogurka oo kaleeto yogurka aad buu fiican yahay blind yogurka cad oo waxba ku jirin baaquli ku shubanaysaa yogurka 3 qaad ku ridinaysaa loos ba korka uga daadinaysaa iyo Manuka Honey heli kartid ama malabka oo dabiiciga ah malabka dabiiciga korka uga daadi cun waxa ka dhigataa casho ka dhigo intaas waa calooshaada mataqaanaa wuu ku qaboobaysaa. Marka daawooyinka qaarkood dadna waa ku fiicnaadaan dadna way ku sii jiradaan. Marka waxaan leeyahay inta ay nabadgeliyo intaan isku arki doono insha Allah hawada. Marka waxaan leeyahay like and share and subscribe keena tab ku dhufta sidaa iyo nabadgeliyo intaan isku arki doono rabadaan. Assalaamu calaykum.